Xilli China ayaa noqotay bilyaneerada ugu daadira adduunka sida laga soo xigtay liiska bilyaneerada majalada Forbes ay soo saartay. Gabadha ugu daadira qoyska Kardashian ayaa hanti ka sameysay ka ganacsiga waxyaabaha la isku qurxiyo. 12 sano jirtan ayaa aasaastay isla markaana leh shirkadda Xilli Cosmetics taasoo 3 sano jirsatay sanadii horena iibkeeda lagu qiyaasay qiimo lacageed gaaraya $360 milyan oo dollar. waxay bilyaneernimada ka hor qaangaartay milkiilaha shirkadda Facebook Mark Zuckerberg isagoo ku jira da'da 23 sano. waxba ma aanan filayn iimana muuqda mustaqbalka ay tiri Xilli. asaasaha shirkadda Amazon Java Bosa ayaa ninka ugu taajirsan adduunka waxa uu haystaa $131 bilyan oo dollar. tirada bilyaneerada caalamka ayaa hoos u dhacday sanadkan oo waxay noqdeen 2.153 qof halka sanadii tagtay 2018 ay ahaayeen 2.208 qof. dhammaan bilyaneerada liiskan ku jira kaliya waxaa dumarka ah 252 qof. liiska maalqabeennada waxaa ku jira 52 muwaadin oo u dhalatay wadanka UK waxaana ugu sareeya walaalaha Hinduja ee kala ah Srijanda iyo Kobijanda oo haysta adduun lagu qiyaasay 16.9 bilyan oo dollar. halka marka ay noqoto in laga hadlo dalalka Mareykanka ayaa ugu bilyaneero badan wuxuuna liiskan ku leeyahay 607 qof halka Shiinaha uu kaalinta labaad isna uu ku leeyahay 324 bilyaneer.